tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee sida rasmiga galabta u soo gabagaboobay ayaa waxaa ku guuleystay xulka gobolka Awdal xulka gobolka Awdal kaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanya uu ka qayb galay ciyaartaasi dhexmareysay labada xul ee gobolka Awdal iyo Saaxil oo soo bandhigay ciyaar ay aad u soo dhaweeyeen dadweynaha kala duwan ee ka qayb galay iyo kuwii kala socday qaybaha kala duwan ee warbaahinta. ciyaartaasi u dhaxaysay gobolada Saaxil iyo Awdal ayaa ku bilaabatay jawi aad u dagan oo labada kooxoodba ay la yimaadeen ciyaar xamaasadeedu aad u sareysay kana muuqatay dardar iyo xirfad. haafkii hore ciyaarta ayaa xulka gobolka Awdal ay ku hogaamiyeen xulka gobolka Saaxil 2-0 taasoo ciyaarta wax ka bedeshay labadaasi gool. hase yeeshee xulka gobolka Saaxil ayaa la yimid ciyaar xamaasadeedu aad u sareyso oo ciyaaryahanada ku jiray garoonkaasi oo midba kale u dhiibayay baas si ay u keenaan gool, halka xulka gobolka Awdalna uu sii xajisanayay labadaasi gool iyo sidii uu guusha u xajisan lahaa. hase yeeshee haafkii dambe ciyaarta ayaa markii la isugu soo noqday waxa gool la yimi xulka gobolka Saaxil taasoo ciyaartu ay noqotay 2-1. intii ciyaartu ay socotay ayaa xulka gobolka Saaxil waxa uu helay rikoodhe ama penalty, hase yeeshee waa laga qabtay. ciyaartaasi ayaa gunaanadkii ku soo gabagabowday 2-1 ay xulka gobolka Awdal ay guusha ku raacday. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanya oo ka qayb galay ciyaartaasi isla markaana daawanayay ilaa bilow ilaa dhamaadkii, isla markaana ay ku weelinayeen daawashadeed marwada madaxweynaha Soomaaliland Marwa Aamina Wari Sheekh Maxamed Shirde, xubno ka tirsan golaha wasiirada, mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo golayaasha qaranka, barasaabada labada gobol ee ciyaartu ay dhexmareysay iyo waliba taageerayaal aad u tiro badan oo ka xaadiray ciyaartaasi. gunaanadkii ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si rasmi ah u guddoonsiiyay koobkii kaalinta koobaad xulka gobolka Awdal, kaasoo guddoonsiiyay kabtanka xulka gobolka Awdal iyo tababaraha xulkaasi. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu koobkii kaalinta koobaad ee kubadda koleyga uu guddoonsiiyay xulka kubadda koleyga ee gobolka Saaxil oo habeenkii xalay hantiyay koobkaasi. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu abaalmarino ay wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ugu tala gashay uu guddoonsiiyay ciyaaryahanadii ugu fiicnaa intii uu tartanku socday, gaar ahaan ciyaartooygii ugu wanaagsanaa, kii ugu akhlaaqda badnaa, kuwa orodka iyo sidoo kale ciyaartooyo ay wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ay ku maamustay abaalmarino. geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu abaalmarino ay wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland u garatay uu guddoonsiiyay wasiirka wasaaradda madaxtooyada mudane Maxamuud Xaashi Cabdi, wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwa Samsam Cabdi Aadan iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Sareeye Guuta Cabdilaahi Fadal Iimaan, kuwaasoo ku mutaystay intii uu tartanku socday doorkii muuqday ay ka ciyaareen. Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi, telefishinka qaranka Soomaaliland.